بسم الله الرحمن الرحيم بدو ما باق أنا أدري إنه وحكوا أدنية هاي وكمية باق فربضن أو أدري إن ضدك بنتلان أو كصاب شقاق ويد ويتكدع إسك أهلي وقبيلة ركو يميرهاس وحكلوا أيدنا تشد وحيابا فربضن أو مقرن إسا كدعية ودباتوين فربضن أمد وكان أما دقنا شيء هاتو أما نور شيء هاتو مقارنة قال كعيو يمير فربضن يا magaalooyinka aan u maleynahay ama ay runtuba tahay inay yihiin ilaha dhaqaalaha sida Boosaaso iyo incidents fara badan oo ka dhacaya waxaan marka baaqan soo jeedinaynaa isimada reer Puntland inay shaqadooda qabsadaan laf dhabar ayay u ahaayeen Puntland haday noqoto dhismihii Puntland haday noqoto wax qabasho weyn oo la taaban karo baan aaminsanahay inay Puntland u qabteen maanta kaalintoodii waa loo baahan yahay hadaysan ayagu gelinna wax qabsoomaya ma jiraan marka inay nabadda ka shaqeeyaan baanu baaqar soo saarayna nabadda inay ka shaqeeyaan inay gudiye iska dhisaan meel walba oo hotspot oo dhibaato ka jiro inay tagaan ummadii inay dhex galaan inay xeeriyaan dadku wuxuu isu yahay ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogtana baaqan waa ka simayna anagu oo waa u direynaa meel walba oo dib ka jiro oo Soomaaliya ka jiro inay isku dayaan inay nabad muxuu ahay taqaataan odayaashuna ay ka qayb qaataan meel walba ay joogaan waa gartay baaqan marka aad direysaan ma inaad dirtaan oo kaliya ku koobayaan mise waxa jira talaabooyin kale oo ay ka mid tahay inaad wafdi dirtaan oo qorshihiina ku jira waxaan channel fara badan baan maaragtay isticmaalaynaa oo anagu ujeedada aanu leenahay waxa weeye si go'aanka iyagu ama go'aanka Puntland Diaspora Forum ay u gaadho baaqan qolooyinka aanu ugu talagalnay waxaan isticmaalaynaa marka ugu horeysaba media oo hadda waa anaga ka hadlayna kaasoo dareemi kadib baaxadda uu leeyahay ummaddu leeyahay waa la wada dhageystaa waxaan kaloo isticmaali karnaa channel fara badan oo meeshii waxa jira walaal saad la socotid ba media waxa iyadana kala jira oo feer socda technology-ga internetka waxa jira telephone waxa jira waxyaabo fara badan Twitter waxa saan la isku xiriirinaa marka dadka waxaan uga qabeelaynaa anagoo u kaashanayna dadka aqoon-yahanada beesha muxuu ahayto qolooyinka ururada bulshada dawladda wasiiradeeda odayaasha waxgaradka intaas oo dhan baanu la kaashanayna qaabkaas inaan maaragtay ku gaarsiino ma la xiriirteen beelaha dagaalamaya iyo odayaashooda dhaqanka ama dadka kale ee mas'uuliyiinta ah ee goobaha dagaaladu ay ka dhacayaan ku sugan walaal waa la xiriirnay turbadiiba dawladdu iyo odayaashu tilaabo cad bay qaadeen walow anaga hadda muhiimadayadu ay tahay arintan waxaan ka wadnaa oo aanu leenahay waxaan dhacaya arintaas inaysan dib dambe u dhicin weey muhiimadda aanu ka leenahay baaqan halkii wax qabad iyo horumar loogu maaragtay qaban lahaa waxyaabo kala fara badan oo loo baahan yahay gurmadku inuu ku dhamaado ma ahan dagaal challenges fara badan oo kala jira oo wadankii jira marka waxaan aaminsanahay in arintan aysan dib u dhicin oo dadka sidii wax loogu qaban lahaa si saliima loogu heshiisiin lahaa haday noqoto mudug waxyaabaha ka socda oo afduubka oo dadka muxuu ahay waxgaradka iyo aqoon-yahanada iyo dadka businessmanka iyo meelaha balada dilaysa in laga qabto يعني أنا أنا من سنة تصنع وحلوق قبل كلا إن أضياش رول وين كقاطع ما دام أيهين اسمه الله إن مضي إن يضاد كماركتي أما ده حادية أنا بحوق قبطان وأنا من سنة هذا إله هذا وحبي بلابين وحنا كفر حصلنا إن أي قريبة وهلال وحي أنا وأنا ماركتي جالسين ما ملك بونتلاند ما لحرير تاني يجا ولا حريرنا باق ما ملك بونتلاند الله دري دياسبرا ده هالكاتشو بتاعه جدي وحكوا عندنا الدولة ده waxa weeye arinta jidda waxa weeye dawladda sideedan xoog kuma imaana waxay ku timid doorasho election bay ku timid balse waxa weeye wax walba oo jira dawladda dadku waa ka cabanayaan oo waxay uga cabanayaan wax kale ma aha markii wixii loo idmaday xoogaa ay dib u dhac ku dhacdo ama aysan wax qabashadii dadku waxay ka filayeen waxa dhacaysa in la yiraahdo waxaan rabnaa in wax isbedelaan marka calaano fara badan tusaalooyin fara badan waa u dirnay dawladda waxaan aaminsanahay ujeedadoodu ay ahayd wax leedahay constructive criticism inaanu doonaa dawladda wax qabad baa loo baahan yahay waxyaabaha dhacay in laga hortagaa loo baahan yahay si xal loogu helo oo wax qabadkii kale oo ama developmentkii ama mid deerkaas uu sii socdo aad baa maasan tahay Cabdiweli hal kalmaan ku darsanayaa anoo ku mahadinaya Ridwan waxaan ummadda Soomaaliyeed u soo jeedinayaa inay nabad qaataan Soomaaliya waa baaba'san tahay danna ugu ma jiro 24 ka saac meel walba dagaalka ka socda ilaahay waxaan ka rajeynayaa in ilaahay ummadda Soomaaliyeed uu gaarsiiyo nabad anigoo ku hadlaya magaca Puntland Diaspora Forum